IBS Bank u doono Dalmar Mastercard. Dalmar World Elite Mastercard. hadda waxaad ku isticmaali kartaa 150 wadan. ku darso oo in ka badan 450 magaalo oo waaweyn ayaad akoonkaaga lacag ugala bixi kartaa. Dalmar Mastercard. IBS Bank u taagan kobcinta dhaqaalaheena. waxa ay 3 meelood meel miisaaniyadeeda guud ku bixisaa gadashada hub iyada oo aan awoodin jebinta ama ka guulaysiga maleeshiyaadka hubaysan ee dhigbaxa ku haya ilaheeda dhaqaalaha isla markaana xiratararaya xadkeeda. waxa uu ku hanjabay dhaxal sugaheedu dhammaynta dagaalka Yemen waliba waqti gaaban gudihiis. ha yeeshee 4 sano oo dagaal kadib waxa la beegsanayaa xarumaheeda shidaalka iyada oo la adeegsanayo gantaalaha balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. waxa laga weerarayaa gudaha dhulkeeda dhinaca bariga si gaar ah Najraan, Jeesaan iyo Casiir. waxaasoo dhan waxa ka daran maalin walba waxa ay 200 oo milyan oo dollar ku qarash garaysaa culayska dhaqaale ee dagaalka. waa dawlad aan ka faa'iidin dagaalada. waxa ay muddo dheer u jilib xirnayd ilaalinta ama gabaadka Mareykanka laga soo bilaabo sanadkii 1945 ilaa maanta. waa Sacuudiga. tanina waa sheekada iyo sooyaalka hubkeeda. تعالوا معنا في رحلة الأرقام المرعبة. عشان تقلل البطالة بتاعتها دي دولة أمريكا waxay yareynaysaa shaqo la'aanta ama baagamuundada maadaama ay tahay dawlad weyn. waxay ku soo rogtay Sacuudiga inuu ka iibsado diyaaradda Beyond. waxay ku soo rogtay Sacuudiga inuu 6 bilyan oo dollarka Mareykanka uu kaga iibsado qalabka dhismaha. $7 ee hub lagu iibiyo adduunka oo dhan mid ka mid ah waxa iska leh Sacuudiga. Sacuudiga waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dawladaha ugu waaweyn ee iibsada hubka caalamka tiro iyo tayo ahaanba. safarka dheer ee hubgadashada Sacuudiga ayaa ku bilowday hub Mareykanku leeyahay laga soo bilaabo sanadkii 1974 kadibna waxaa xigay hub Ingiriisku leeyahay oo ku yimid waxa loo yaqaan heshiiskii Yamama kaas oo lagu tiriyo inuu yahay heshiiskii hubka ee ugu musuqmaasuqa weynaa taariikhda Ingiriiska. لأن صفقة أسلحة اليمامة بين maxaa yeelay heshiiskii hubka ee Yamama ee u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Sacuudiga waxa loo arkaa inuu yahay heshiiskii ugu komishinka ama mushqaayada badnaa taariikhda ka ganacsiga ee hubka UK. waa heshiis ku dhisan kala gadashada tiro xadidan oo kamida diyaaradaha dagaalka oo ah 72 diyaaradood. haddaba waxa aad qayb tiro yar ku iibsatay qiimo aad u sareeya. go'aanka kala gadashada aad ayaa loo qariyay maxaa yeelay waxa uu ku saabsanaa nabadgelyada qaranka. celceliska hubgadashada Sacuudigu waxa uu u korayay qaab aad u sareeya 80maadkii ilaa 90maadkii intii lagu guda jiray wixii loo yiqiin tartanka ishubaynta ee dawladaha Khaliijka kaas oo daba socday guushii kacdoonka Islaamiga ah ee Iiraan sanadkii 1979 kadibna waxa xigay duulaankii Ciraaq ee Kuwait sanadkii 1990. صفقات السعودية في ميزان الاقتصاد. heshiisyada hubka ayaa culays dhaqaale oo aad u badan waxa ay saareen miisaaniyadda Sacuudiga laga soo bilaabo bartamaha 80meeyadii iyada oo qiimaha shidaalka hoos u dhacayay ayay boqortooyadu sii waday inay dhaqaale badan ku bixiso hubgadashada kaas oo gaaray 8% wax soo saarka guud ee gudaha wadanka intii u dhaxaysay sanadihii 1987 ilaa 1997. waxa ay ahayd fadhiidnimo miisaaniyadeed oo wajahaysa maalgelin aad u ballaaran oo dhinaca militariga ah. waxa uu ahaa isu dhigan aan ku koobnayn oo keli ah tagtada dhow laga soo bilaabo sanadkii 2014 ilaa maanta. Sacuudigu waxa uu diiwaan geliyaa fadhiidnimo miisaaniyadeed oo sanadla ah. waa fadhiidnimo miisaaniyadeed oo aan lahayn marnaba hoos u dhigidda miisaaniyadda gaashaandhigga. taas beddelkeedana waxa ay qaaday boqortooyadu wax si walba uga duwan xal u helidda fadhiidka miisaaniyadda. xilligii Obama Sacuudigu waxa uu soo dhoofsaday agabkii ugu tirada badnaa ee ishubaynta ee Sacuudiga 94 bilyan oo dollar ayaa ku kacday ishubaynta boqortooyada intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2015. sidaasna waxa shaaciyay adeega cilmi baarista ee aqalka odayaasha ee Mareykanka sanadkii 2016. waa heshiisyo balaayiin dollar ku kacay kana yimid meel walba laga bilaabo Mareykanka, UK, Canada, Talyaaniga, Russia, Shiinaha iyo xitaa Faransiiska, Sweden, Belgiumka, Norway, Turkiga, Switzerland, Spain, Jarmalka, Serbia,
koonfur afrika griiga iyo xitaa georgiya waa hanti ciidda ka badan oo ay boqortooyadu ku bixinaysay 10 sano hub aad u hormarsan si isugeynta hubkaasi u samaysay difaaca hubka ugu halista badan adduunka sacuudigu waxa uu leeyahay diyaaradaha ugu casrisan dunida laga bilaabo diyaaradda Typhoon oo UK soo saarto iyo F-15 oo Mareykanku leeyahay waxa kale oo sacuudigu haystaa taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ee ugu xoog badan kuwaas oo leh difaac aad u adag dhinaca badda biyaha sacuudiga waxa ku jira dhowr doomood iyo maraakiibta dagaalka boqortooyadu waxa ay haysataa bambooyinka wax burburiya dhulka sacuudiga waxa ku yaal hanaanka ugu horumarsan ee difaaca cirka ee Patriot waxa ayna boqortooyadu isu diyaarinaysaa inay keensato hanaanka difaaca ee THAAD ee Mareykanka waa difaac aad u adag una ballaaran oo kugu qaadaya inaad rumaysato in sacuudigu leeyahay ciidanka ugu xoog badan adduunka ha yeeshee dhab ahaan marka laga hadlayo dhinaca awoodda caalamka sacuudigu waxa uu ku jiraa kaalinta 26aad Iiraan ayaa ka horeysa oo ku jirta kaalinta 13aad waxa suuragal ah in lambarada muuqda ee loo jeedo aanay noqon kuwa ku filan inay muujiyaan xaqiiqda sidaas awgeed noo ogolaada inaan aragno waxa uu sacuudigu yeeli doono marka uu galo dagaal dhab ah I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. waqtigu waa 2005 goobtuna waa sacuudiga dhacdaduna waa dagaalka duufaanta waa dagaalkii oo muhiimadiisa yaraystay wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaas Maxamed bin Salmaan waxa uu dagaalkaasi ka dhignaa imtixaankii ugu horeeyay ee dhabta ahaa ee ay gashay awoodda sacuudigu ha yeeshee 4 sano oo hardan ah kadib dagaalkii ma joogsan sacuudiguna midna kama xaqiijin ujeedooyinkiisii uu ka lahaa dagaalka Yemen waqtigu waa uu nala jiraa qandhadayska dheerna waa danteenna إذا نظرنا إلى أهداف السعودية من الحرب في اليمن حماية الحدود الجنوبية haddaan fiirino danaha sacuudiga ee dagaalka Yemen waxaa ka mid ahaa ilaalinta xuduudaha koonfureed iyo in sacuudiga laga ilaaliyo duulaanka iyo soo celinta xukuumadii Haadi iyo in meesha laga saaro fulinta awoodeed ee Iiraan dhammaan afartaas arrimood waxa aan dhihi karnaa sacuudiga wuxuu ku sii fogeynayaa xaqiijintooda sidii uu uga fogaa markii dagaalku bilowday haddii uu sanba kaga sii fogeyn لا يوجد استراتيجية في القتال في اليمن ma jirto marnaba istiraatiijiyad dagaal oo ku wajahan Yemen خسائر السعودية بالأرقام 2400 oo askari iyo 60 sargaal ayaa ku dhintay waxaana ku burburay 650 taangi si looga hortago hal gantaal oo plastic ah waxa ay u baahan tahay boqortooyadu 3 gantaal oo ah nuuca Patriot ee Mareykanka halkii gantaal ee nuuca Patriot ahna waxa uu ku kacayaa 3 milyan oo dollar tirada gantaalaha ay xuuthiyiintu ku hogaamiyeen sacuudiga sanadkii 2018 waxa lagu qiyaasaa ugu yaraan 100 gantaal taasoo ka dhigan in boqortooyadu ku bixisay 700 oo milyan oo keli ah ka hortagidda gantaalaha balastiga sidaas oo ay tahayna tiro ka mid ah gantaalahaas lagama hortagin 72 bilyan oo dollar ayay ku bixisaa dawladda sacuudigu sanad walba oo kaliya dagaalka Yemen taas oo sababtay hoos u dhaca kaydka dawladda ee lacagta shisheeye waxa uu gaaray 487 bilyan sanadkii 2017 halkii uu ka ahaa 737 bilyan oo dollar sanadkii 2014 waa qasaaraha balaayiin dollar oo ku qasbaysa sacuudiga inuu amaah ka soo qaato hay'adaha lacagta waxa kale oo ay ku qaadaysaa boqortooyada inay kordhiso qiimaha ayna canshuur ku soo rogto dhammaan dadka soo booqda aakhirkana waxa ay natiijadu noqon doontaa in ku qarash garaynta dhinaca hubka 3 meelood meel wax soo saarka guud ee boqortooyadu uusan u xaqiijin sacuudiga wax guul ah horumarka ugu weyn ee 4 sano la gaarayna waxa uu ahaa mid ku kooban hal wax oo kali ah صفقات السلاح المليارية ضريبة السلاح من يدفع الثمن celceliska fadhiidnimada dhaqaalaha iyo kordhinta maalgelinta militarigu waa sii socon doonaan sacuudigu waxa uu ku bixiyey iibsashada hubka lacag dhan 90 bilyan oo dollar laga soo bilaabo markii uu qarxay dagaalka duufaantu waa tiro aad u weyn oo wajahaysa fadhiidka miisaaniyadda guud oo ka sii weyn kaas oo gaaray 98 bilyan oo dollar marka la fiiriyo
wax soo saarka guud ee gudaha waddanka sacuudigu waa dalka labaad ee ugu weyn ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya militariga qiyaas gaartay 10.3 boqolkiiba waa qarash garayn gaartay ilaa dhammaadka sanadkii 2017 qiyaastii 224 bilyan oo riyaal waxa ay gaartay 210 bilyan oo riyaal sanadkii 2018 waa xisaab aad u ballaaran oo lagu bixiyay hub reer galbeed kaas oo ay iibsanayso dawlad carbeed si ay ugu adeegsato dawlad kale oo carbeed دولة عربية لتستخدمه في دولة عربية أخرى. Yemen is the world's worst humanitarian crisis. yemen waxaa ka taagan xaaladii ugu xumeed ee bini'aadanimo ee adduunka soo maray dad ka badan 22 milyan ama 3 meelood meel dadka yemen ayaa u baahan kaalmo bini'aadanimo iyo gabaad ha yeeshee dhibaatadu ma gaarin yemeniyiinta oo keli ah dadka u dhashay sacuudigu waxa ay qabaan dhibaato nuuc kale ah sida uu daabacay websayte-ka Forbes ee Mareykanka sacuudiga ayaa markii ugu horeysay waxa uu u leexiyay qaybta ugu weyn ee dhaqaalihiisa gaarka ah dhinaca qarash garaynta ciidanka iyada oo lacagtaas laga soo jaray qaybaha kale ee wax ku oolka ah sida waxbarashada iyo caafimaadka sanadkii 2018 لدينا إشكال في قطاع الصحة وإشكال كبير جدا كثير من المرضى يتجه للمستشفى gudaha sacuudiga arrin aad u murugsan ama aan la fahmi karin ayaa naga haysata dhinaca adeega caafimaadka in badan oo ka mid ah bukaanka waxa ay taagan yihiin isbitaalka iyagoo dhibaato caafimaad qaba waxaa laga yaabaa in uu nolosha waayo sababtuna waxa ay noqon kartaa in aan la heli karin sariir lagula tacaalo xaalkiisa maalmaha saboolnimada waxa ay dhaaftay sacuudiga 23 boqolkiiba ama waxa aan ku sii dhownahay inaan noqono 4 meelood meel dadka degan waddanka aadka qaniga u ah balse ka hooseeya xariiqa saboolnimada kadib markii ay xumaatay xaaladda xuquuqda aadanaha ee sacuudiga ayna boqortooyadu sii waday dagaalka ay kula jirto yemen dhowr dawlad ayaa shaaciyay inay joojiyeen hubkii ay ka iibin jireen sacuudiga sweden ayaa ugu horreysay dawladahaas laga soo bilaabo sanadkii 2015 waxaana ku xigay jarmalka biljamka iyo norway sanadkii 2018 ha yeeshee arrintaasi wax weyn kama beddelayso xaalka iyo celceliska guud dagaalka yemen waa socdaa weli suuqii hubkala gadashaduna waa kobcay waa baahi iyo bandhig sidaas ayay u arkaan Trump iyo dawlado kale oo badan waa suuq madow oo ku shubaya balaayiin dollar jeebabka wadamada farsameeya hubka fadhiidnimada dhaqaalahana ku sii badinaya ama ku sii kordhinaya kaydka kuwa iibsada hubkaas mana hayo hubkaasi waxaan ahayn burburin I would not be in favor of stopping a country from spending 110 ma taageerayo axsaanna uma samayn maayo in waddan loo diido inuu 110 bilyan oo dollar uu ku bixiyo heshiisyo hub iyo military iyadoo aan la diiwaangelin wax u dhigma lambarkaas xoolahaas uguma tagayo in raashka ama China midkood uu qaato taariikhda ayaa la moodaa inay dib isku soo celinayso Aircraft are very expensive these days, and so you don't want them to have just one roll when that one roll is advanced. maalmahan diyaaraduhu aad ayay qaali u yihiin sidaas awgeed waa inaadan ciyaarin kaalin qura marka ay kaalinta qura tahay inaad samayso tababar horumarsan diyaaradahani sidoo kale waxa ay ku habboon yihiin inay qaadaan weerar dhulka ah sidaas awgeed aad ayay u fiican yihiin marwo waxa aad u muuqataa in aad tahay wakiil ganacsi oo aad xariif u ah maya waxaan ahay ra'iisul wasaare wax xiriir ah lama lihi wakiil ganacsi $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. haddaba sacuudiga ayaa iibsanaya waxaana beecinaya dhammaan waxaana la moodaa inay yihiin wakiilo ganacsi intooda badanse waa madax dagaalkuse ma dhammaanayo shidaalka lagu horinayo waa hantida carabta dhibanayaasha dagaalkuna waa carab haddii aad ku hadasha afka carabiga si dhammaystiran ayaad u taqaan sida loo sameeyo gunaanadka wanaagsan